بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا ريال من التوكتان بوين السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيان دلنا نهاي ما أنت وحكو سوقنا نهاي مقالة وجهاله وحربنا دوينها الدجان مقالة دنيا ويدينا السؤال الدينية أو كم إذا برنامج كبرد دين تادا إن شاء الله قفكي مركها كجواب سؤالها سوحان قدون سين دونا هدية آذو قاليا قفكي كلنا سيدو كلا هدية كلا عيان سين دونا إن شاء الله دمان سؤالها ما أنت وحكو سابس سنان دوران أحكام تا صلاة sababtoo dadweynaha daawada ama dadka walaalada ah inagu xiran ayaa waxay naga codsadeen codsi fara badan oo xaggooda nooga yimid in su'aalaha laga dhigo waxyaalaha marka muhiimka u ah qofka muslimka ah sida tawxiidka ama aqoonta iyo salaada iyo wixii la midka marka insha Allah ta'ala barnaamijkeena maanta wuxuu ku saabsanaan doonaa dhammaan su'aaluhu ahkaamta salaada iyo su'aalo ku saabsan salaada waxaynu ku bilaabanaa insha Allah dadweynaha waanu yeedhno oo aan weydiino su'aashaas kadibna ay ku guuleystaan hadiyada kala duwan waxaan insha Allah ta'ala halkan maaragtay uga cadeyn doonaa barnaamijkan waxa fududeeyay dukaanka loo yaqaan Chori Store oo kamida dukaamada waaweyn ee ku yaala magaalada Hargeysa gaar ahaan kuwa iibiya cadarada iyo barfuumada iyo cuudka iyo unsiga waxyaalaha la isku udgoonaysiyo dhan wuxuu dukaankaasina markaa uu ku yaala magaalada Hargeysa gaar ahaan idaacada qofkii u baahan insha Allah dukaanka Allah barakeeyo isaga barnaamijka fududeeyay assalaamu alaykum عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مقعدة خالد عبد الرحمن عدلي. خالد وكسر دو برنامج كبرد دين هذا إن شاء الله سؤال ديني كويتينية سؤالك كويتينية واحد ما تكتور صلاة. ها صلاة وانت كذا. واحد كويتينية شروطها صلاة ويكون صحة واحد شراء شروط ما رأيت تقف كمسلم كان لقربه ينتهي تكنين كهر سي صلاة دي سوان صحة محاكم ده. شروطها وحاكم ده إن قلت مركور سينات صلاة ويسيستو. إناد ويسيستو كو فريد وادقرتي ميت كلا قدر. horta waa marka hore inaad istaahiriso oo jidhkaagu daahir yahay Soomaa jidhkaagu daahir yahay haye maradaaduna ay daahir tahay meeshaad ku tukanaysana ay daahir tahay fariid weysada inaad weysa qabtid meesha ku tukanaysid daahir tahay dharku daahir yihiin way shardi kale maxaa kamida xaga loo jeesanaya shardi kale waxa kamida xaga qiblada loo jeesanaya ka war haddaan u jeesto dhanka sii jeedka kama salaad fariid u gartay ninka Khalid la yiraahdo ayaa su'aashii saxay hadiyad baa lagu siinayaa insha Allah ta'ala adeer ha tagin halkan soo istaag ha tagin hadiyad baa lagu siinayaa insha Allah ta'ala waxa weydiinay walaalayaal walaalkeen Khalid waxaan weydiinay shuruudaha ay salaadu ay ku ansaxdo marka shuruudaha waxa kamida qofku inuu niyeysto marka niyadii ayaa iyadana ku jirta kow inaad niyeysato waxa kale oo kamid ah inaad marka wax weeyaan xagga qiblada u jeesato in dharkaagu daahir yihiin meesha ku tukanaysana daahir ay tahay inaad weysa qabto iyaduna waa shardi kamid ah shuruudaha marka wax weeyaan salaada aad iyo aad u mahadsan tahay soo sii sheekh hambalyo mahadsan tahay assalaamu alaykum alaykum asalaam wa rahmatullah magacaaga walaal عبد الواحد وكسر دو برنامج كبردين هذا إن شاء الله سؤال دينية كويتينية سؤالها سوحي تاهي أما سؤالها سوحي تاهي ميلها أنا صلاة كو أنصحن واحد شرتا ميل أنا صلاة اللي قلت كان كرين وممنوع عيتاي دين إسلام كميلها مقرنس ميلها الواقع بين صلاة اللي قلت كان كرين مايش هدين نجاستها ما حاكم يمكن نجاسويك نجاسة وحيابيه وحياب نجاسيني sida saxarada kale kaadidii iyo bilaacadihii suuligii meelaha ku yaalaan waa sax meesha salaadu kuma ansaxayso meel kale ma garanaysan meel kale aan ku ansaxin salaadu meesha ma wad saxsan tahay mar haddaad sheegtay mugti ku daafadaha iyo meelaha najaasadu taallo dee laguma tukan kara salaadii waa najaaso wey waa saxsan tahay kuwa kale meel kale ayaguna jiraan waanay salaadu ku ansaxayn xitaa haddaad ku tukato mugti sax garanaysan meelaha kale meelaha kale waxyaalaha u diiday macnaha nijaasada darteed lagu tukan lahayo Soomaa meelo kale mamnuuc ah in lagu tukado iyadana marka kaniisada kale meelahaas kale tikirsan noqoto kaniisada in kastoo la isku khilaafsiisan yahay laakiin iyadu waa lagu tukan karaa bay culimo badan ay qabaan laakiin meelo kale jiro oo diinta ku soo arooray oo la yiri meelaha ha ku tukanina مثلا qofku markuu dhinto kale waxa la geeyaa qof markuu dhinto masaajidka la geeyaa markuu macnaha lagu tukanayo Soomaa
meelo kale jiro qofka day markuu dhintay la geeyay xabaasho kale qabri xabaasho ma lagu tukan karaa ma ay qabriga lagu tukan karaa isku day horta isku day wanaagsan baad samaysay ma sha Allah dhowr meelood ayaa jira oo dabcan marka waxa way salaad aan ka saxaynin laakiin waxaan ku siinaynaa insha Allah hadiyad kale aan ku siinaynaa oo isku dayday nin dhiiran ayaa tahay ma sha Allah insha Allah may waa nasiibkaaga ambaliyo ay u kaadi namadii ka soo rimay kala adu السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. كاميرا السلام عليكم هذا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مقعد أحمد السنور. أحمد وكسر دو برنامج كبر الدين هذا سؤال ديني أو دينية سؤال الدين ده واحد تاعي مركل اللي تكنيه واحد واجب إن قبلة حاجة اللي تشهيسته سما قف البون قبلة ده حاجة اللي تشهيسته واحد صرت مر أنا قف كمسلم كواجب كنا قارنين إنه تشهيسته حاجة قبلة ما قرأنا سمركها إنه حق قبله أو وجد سذا مرة واجب كمان نقنش وقارنا حلقة وحاويان قفك صح مود بنتي أتكت كريس ما كقف اعتاد أنت ويا حلو شديد قبلها لو شديد سما لكن أضيق حتى عافمات قبل حتى ودع كرتينا ميلان قبلها هين وتكن كرت قرنا سحلقة حلقة ميلان قبلها هين نوتكذا صلاة شنت وقتي ميلان قبلها هين ما رح اللي لوتكذا أضو أما صلاة تيتهبد نو شيء صلاة حق قبل أن لتكن حلقة وقت هتمان كل شيء ما يقعدك يقعدك تها دم لها صوصي شيخ هدي ده كلا صوصي إن شاء الله وسكودي بتوتا صوصي تويتي كلا جايلي وكادي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مقعد والله. علي إسماعيل فارح. علي إسماعيل فارح كسر برنامج كبردين هذا سؤال ديني إن شاء الله كويدينية سؤال شاس إن شاء الله دتك جوابته هديد ونكسب بقسين دونا بإذن الله. واحد كويدينية سؤال شاء قرما أيا قبلنا إن لوتش هيستو أنا واجب نقنين. waxay waajib noqonaysaa xadiis ku soo arooray markay waajib noqonayso markay jahaadu ka lunto oo kala weydo qablada dhinaca ka xigto xadiista ku soo aroortay xakaanta salaada way markaasi jahaadu markay ka lunto kala weydo gaadho adoo raaco kale noqon karta gaari oo jahaadu ka lunto adigoo markaa gaari raaco kale musaafir noqdo way mar kale ma garanaysaa oo aanay qibladu waajib ku ahayn qofka muslimka markay kala xakaanta waxa waajib kugu ah adiga qofka ayna waajib ku hayn qofka مثلا مسكحتي هذا عادي دهين قفك حنوصن يده حنوصن يها قفك حنوصن مثل سرير سكيا لا سريرتي صارت isagana kuma waajib mid kala jiray mar kale oo qof xitaa caafimaad qaba oo gurigiisii jooga xitaa ama masaajidka meel u dhow jooga aan waajib ku ahayn ma garanaysaa qofka ayna ku waajib ku ahayn marka qofku maskaxdiisa aw dhamo kale dhamo may uu caafimaad qaba waadi uu caafimaad qaba wa xaalad kamid ah xaaladaha maartay qofka muslimka ah salaad gaar ah buu tukanaya salaad kasta maaha garanaysaa salaada ku gaarka oo qasriga weeyaan ما شاء الله اسكت aad iyo aad u soo dhaweysay runaantii hadiyad kale ku siinayna insha Allah ta'ala waana ma santahay jazakallahu khairan Allah يبارك فيك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمك مصطفى سراج. مصطفى أهلا وسهلا في برنامج تعلم دينك إن شاء الله سأسألك سؤال ديني إن شاء الله بإذن الله اذكر ثلاث حالات يؤتى بسجود السهو. تعرف سجود السهو؟ سجود السهو نعم 3 حالات لابد أن تسجد سجود السهو. سجود السهو أيوة سبحانك. سمعت سجود السهو ولا من قبل؟ يعني حق سجود صلاة. سجود صلاة. أيوة سجود الصلاة. نعم سجود الصلاة. سبحانك الله رب العلا وبحمده. ما في مشكلة باني. الحمد لله جزاك الله خيرا. الجواب ليس صحيح لكن حاولت ما شاء الله وسنعطيك هدية أخرى. هذا هو كتاب حسن المسلم إن شاء الله تقرأه تستفيد من هذا الكتاب إن شاء الله بإذن الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مقعد والله. شعيب والله مقعد. شعيب وكسر برنامج كبرتين هذا إن شاء الله سؤال ديني كويتينية سؤال كويتينية وحا إتاهي
waxaad sheegtaa salaada janaasada horta ma maqashay haa waa maxay salaada lagu tukado meydka meydka afar takbiirood bay leedahay soma afar jeer baa allahu akbar la dhahaa afartaa jeer waxa la akhriyo mad noo sheegaysaa khalaas lacagtaadana waad la qaadanaysa halkaas ka qaadanaysa horta marka ugu horeysa ee allahu akbar la yidhaha haa waxaa la akhriyaa saliga nebiga sal alay wasalam ma too horraysa waxbaa ka horreeya salaad walba lagu bilaabo iska hubso ta ugu horeysa faatixada ka horeysa faatixada ka horraysa haye waa faatixada talabaadna ta labaadna waxa weeyaan saliga nebiga salliga nebiga sala allahu calayhi wasalam haye tal saddexaadna ta saddexaadna waxa weeyaan qofka loo ducaynayaa qofkii dhintay ayaa loo ducaynaya kii afraadna maasha allah 75 waad saxday ka afraad haye maxaa hadhay salaaddii salaada taabanada waa tasbiixsan allahu akbar assalaamu calaykum waa laga baxaya oo gartay run ahaantii waxa weeye salaada janaasada marka tukanayso rakcadda koowaad faatixada la akhrinayaa ta labaadna nabigeena lagu salinayaa sallallahu alayhi wasallam ta saddexaadna qofkii dhintay baa loo ducaynayaa ta afraadna waad ku salaamo naqsanaysaa hambal iyo walaal hambal iyo jazakallahu khayr السلام عليكم. وعليكم السلام. مقعد ولا؟ مقعد عبد الله. عبد الله ما قرنيسا التحياتك. تحيات. صلاة مركل اللي تكنيو وحل آخر التحيات سما فلا التحيات يا أخي. التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر الله أكبر. وقرتي صوصي هديدي سي يقول علي مقعد عبد الله. عبد الواحد بالي هذا التحيات كي أيو صحيح ونهانتي وحربنا قف كستو مسلمين يسكسحوا التحيات كسيد الله آخرنا وصحيحها هديدي سي بالله لو سنة إن شاء الله تعالى همبليو مبروك مبروك جزاك الله خير. أي حاجة تشتغل. سؤال الدنيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مقعد ولا أحمد شكول مع العاص. أحمد وكسر برنامج كبردين هذا إن شاء الله سؤال كويدين يا وحي تاعي marka salaada lagu jiro nabiga lagu saliyaa sallallahu alayhi wa sallam qaabka loogu saliyay marka nabigeena alayhi salatu wa salam wa qaabkaas akhrinaysa يعني وحاويان قابل الله صليه وتشهد كإبراهيمية الليلة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الله أكبر تكبير الله أكبر ما شاء الله سو سحيرنا أنت نهمبليو ما شاء الله جزاك الله خيرا صلي النبي سيدي صحدا هيدي لو آخرني أيو آخري همبليو ولا جزاك الله خير. ها سوسرك ها ويديني من يقفل بقى هذه ما شاء الله waxay sheegaysaa inay ahlu salaad yihiin ma sha Allah. Assalaamu alaykum. Alaykum asalaam wa rahmatullahi wa barakatuh. magaca walaal Abdi Majid Xaadar. Abdi Majid oo ku soo dhawo barnaamijka baradiintaada insha Allah su'aal diiniya ku weydiinaya su'aasha ku weydiinaya waxa weeye waxa sheegtaa toddobada xubnood ee laga sujuudo qofka muslimka laga baahan yahay inuu ka sujuudo oo dhulka dhigo waa sujuuda maxaa loo yaqaan halkan ya gacmaha kuwe asaabicda gacmaha labada kaf labada kaf calacalada waaye labada xusul labada kaf haye labada jilib afar haye iyo labada lugood gacmaha inta yara hore lugaha farahooda waaye waa isku imisa iyo sujuudu waa lix iyo sujuuda sujuuda maxaa kale ku jira halkan waxa la dhafoor baa la iyo sanka ku jira Allahu akbar waa shalamay toddobada xubnood ee jidhka binimus qofka muslimka loo baahan inuu ka sujuudo waa wajiga oo ay ku jirto dhafoorka iyo sanku waa waajib sanku iska ilaaliya qof kasta oo muslima inuu sanka dhulka dhigo waa loo baahan yahay waa shay waajiba iyo labada gacmood iyo labada jilbood iyo faraha lugaha hore aad baad maasantay waad saxday hambaliyo hadiyadaadana waan ku siinaya insha Allah ta'ala hambaliyo soo istaag السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله الكسر دو برنامج كبردين هذا مقعقة. مقعقة هذا أنا علي عبد الله إبراهيم بالروان دوه.
aadan ku soo dhawow walaal barnaamijka baradiintaada su'aal diiniya ku weydiinaya su'aashaas waxay tahay marka khudbadda jumcada lagu jiro waa mamnuuc inuu qofka maaragtay maamuumka ah inuu hadlo khatiibka ama qofka maaragtay khudbadaynaya oo keliya ayuunbaa hadla waxaad sheegaysaa hal mar oo keliya oo qofka markaa waxa weye khudbadda dhegaysanaya loo ogol yahay inuu hadlo garanaysaa markaasi bismillaah su-aasha haddii aan isku dayo waxa weeyaan ayaan jecelahay su-aashii uu yidhi rasuulka alayhi salaatu wasalaam ninkii intuu soo galay dabadeedna siduu soo socday masaajidka markuu soo galay fadhiistay yaa fulaan kac hebelo yani tuko yani 2 ragcadood sunnaha allahu akbar ma sha Allah aad iyo aad baad horta u soo dhawsay markaas waxa weeyaan imaamka markaa hadlaya oo la hadlaya qofkii maamuumka ahaa soomad garan iminka maamuumkii ayaa la rabaa inuu hadlo marka goormay u banaantay aad bad u dhowdahay ma sha Allah marka lafteeda haddii aan isku dayo lafteeda waxa weeyaan baan jecelahay haddii ilaahay awoodda uu ka raali noqdo marka uu isagoo ku jira salaada oo khada yimaado khalad yimaado in dee mataqaana marka aad la hadasho oo aan maamuumku dee la hadleen imaamka markuu sahwiyo macnaha markuu sahwiyo aad iyo aad wallahi run ahaantii aad iyo aad baan uga helay yani cilmigaaga cilmi aad u weyn baad leedahay run ahaantii inkastoo su'aasha aan mar kale kugu celinaysan chance labaad oo kale ku siiyay insha Allah laana waxa weeyaan waxyaalo waaweyn arrimo waaweyn oo kale oo muhiim ah baad ka jawaabtay waxa weeye qofkii maamuumka ahaa imika salaadii lagu ma jiro khudbadii ayuu khatiibkii baa soo istaagay maanta soo jumca ma ahayn khatiibkii markuu soo istaaga minbarka qof kastaba uu aamusay Soomaa hal mar baa maamuumka loo ogol yahay inuu hadlo imika hataa imika inagoo khudbadii jumcada iyadoo lagu jiro haddaan idhaahno aan iska hadalno wax iska idhaahno jumca ma lihin waa laqwi weeye xitaa haddaad tidhaahdo dadka aamusa adiguna la mid baatay khudbad ma yeelanaysid waa laqwi marka hal mar ay bannaan tahay halkaa marna maamuumka ayaa wuxuu cid buu la hadlay cid gaara cidda gaarku la hadlay ma garanaysa shukran ما شاء الله كالك تهديد بكسينيا أمبليا أدل ما سنتي ما شاء الله رنان سنين أقوياء نبوها إن ير بكرينين سدود السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مقعدر متان شينا متان وكسر برنامج كبردين هذا إن شاء الله سؤال ديني اللي قويدينيا سؤال شان قويدينيا وحا أيتين مركز صلاة البلابيو وحا الأخريات الدعاء والاستفتاح دعاء اللي وفر فرصة صلاة way badan yihiin mid kamida ma taqaana ama ma noo akhrin kartaa wana qana in badan waan garanaya haye fal mid kamida akhri waxaad akhrin kartaa tan quraanka soo aroortay oo wajahtu wajhilladii fadala samaawaati wal ardi xaniifa sarawqaasay dadkeenu uga faa'iideystaan kuwana quraanka ku soo aroortay kuwana xadiis waayahay quraanka ku soo aroortay waxa kamida inay tahay wajahtu wajhilladii fadala samaawaati wal ardi xaniifa wa maana al mushrikiin ma sha Allah inna salati wa nusuki wa mahyaaya wa mamati lillahi rabbil alamin لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين أعطيك كرتا وأنا من المسلمين الله أكبر الله تكبير الله أكبر والله إن شاء الله ما شاء الله رناهنتي دعوين فربنا يا صار وري والله هذا الدعاء والاستفتاح والنبي كفر فرنش ري صلاة مد كم إذا أيو مارتي ولكن وأخي أمبليو ما شاء الله سدوا الشيخ السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مقعدر علي موسى عمر علي كسو دغو برنامجka baradiinta hada insha Allah su'aal diiniga ku weydiinaya su'aashaas waxay tahay salaada ciid marka la tukanayo takbiir badan baa la akhriyaa inkastoo Soomaaliya dhahdo salaada waxay ka xirmilaada marka takbiirta ragcadda koowaad intay tahay ragcadda labaad intay tahay noo sheeg insha Allah ta koowaad waxa weeye waa 7 hay ta labaadna waa 5 Allahu akbar kaga soo qaad ta koowaad waxa waa 7 waa runtiisa ta labaadna waa 6 7 aad waa saddex hambalyo سدود السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مقعي وحلا يلا محمد أيان لو كسر دو برنامج كبردين هذا إن شاء الله سؤال ديني كويدينيا واحد كويدينيا صلاة الصبح واحد شفت له بركة عضوضة كهرية وقفك مسلم كاوي تكدو سنة مركا واحد كميدا إن لبدا ركعضوض الآخرية لبا صورة ضوض وكميدا قرآن كإلهي وصورة ذا ولي با يرير وكسي قشة يسوى شاسي وصورة ذا يرير والنبي مرول بوا آخرين شري لبدا ركعضوض الفجر كهرية maxay kale yihiin labada suurad kulli waxaan maleeyaa tahay qul wallaha iyo qul ya kaafiruun iyo qul wallaha Allahu akbar takbir Allahu akbar ma sha Allah kaga soo qaaday waa runtiisa salaada waxa la akhriyaa
suuradda maaragtay suuratul ikhlaas oo qul huwallaha ah iyo suuratul kaafiruun qul yaa ayyuhal kaafiruun ma sha Allah hambalyo Soomaali magaasaysa adiga waayahay soo dhaw السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته magaca walaal عبد حسن بيدال عبد حسن oo ku soo dhawo barnaamijka baradiintaada insha Allah su'aal diini ku weydiinaya waxaad sheegaysaa salaada adigoo ku jira waxa jira xayawaan nabigu uu yiri laba xayawaan xitaa adigoo salaada ku jira way dili kartaan ha adoo salaada imika ku jirta soma Allahu akbar baa tiri laba xayawaan baa ku soo maray halkooda ku dilaysaa maxay yihiin xayawaanadaas xayawaanadaasi Allahumma salli ala Muhammad wa shaytaan ka hormarinaya shaytaanku xayawaan iskuma matalo qalbigaagu waa xayawaan caadiya ma shay waa xayawaan caadiya oo nabigu yiri hal dilo uqtulu al-aswadayn laba midmadow yiri nabigu weeyaan wallahi kuma shax garay hadiyad kala laga sinay soo si kitaabka ma sha Allah aad bad u soo dhaweysay run ahaantii ma sha Allah mar hadda tiri shaytaanka hal gowraco halkiisa lagu dilo anbali ay السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته magacaaga walaal زبير عبد الله زبير oo ku soo dhawo barnaamijka baradiintaada insha Allah su'aal diini ku weydiinaya su'aasha ku weydiinaya waxa weeyaan اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله صلاه ila witriga ama salaatul leelka xilliga bilaabanto iyo xilliga dhamaato waxay bilaabataa soonka isagoo maraya 10ka ma soon ma salaada leelka habeenkiisa ma arkin salaatul leel baa ama witri salaadaas habeenkii xilli bay bilaabantaa samad garan xilna way dhamaataa waqtigaas noo sheegay labada habeenimay bilaabataa ay la 8 macnaha 8 ma fahmiya ha 8 bilaabataa waxaana dhamaataa 3 sagaalka macnaha 3 habeenimo ha sagaalka oo bariga hore saacadii may jiri jirin waqti xilligii nabiga saacada may jiri jirin 8 iyo 9 waxa may jiri jirin waxba lagu garanayaa calaamad marka calaamada ma garanaysa may wallahi garan ma leh isku dayday kitaab kala lagu siinayaa ma sha Allah jazakallahu khairan aye hambalyo sidoo ha sidoo ha waya السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته magaca walaal عبد الناصر محمد عبد الناصر oo ku soo dhawo barnaamijka baradiintaada insha Allah su'aal diini ku weydiinaya su'aasha ku weydiinaya waxay tahay salaada la yiraahdo witriga ee salaada leelka waxa jirta xilli ay bilaabanto iyo xilli ay dhamaato noo kala sheegaysaa waqtiyadan haye waxay bilaabantaa cishaaga marka laga baxo haye waxayna ku dhamaataa salaad subax inta daakiraad inta la gali ka hor Allahu akbar takbir Allahu akbar waruntiisa ma sha Allah waxa weeyaan salaadaas waxa bilaabantaa waruntiisa salaada cisho marka laga baxo ilaa salaada subax marka la aadaamayo ma sha Allah jazakallahu khairan Allah ybarik fiik wa hambalyo yar ma jiro magaalada yar ku yaryahay kaalay magaala ganacsiyeeda waa rag waaweyn oo jooga rag yar baa la rabay diinta bartaan waa xaga daanta tigabtay daantii qabtay السلام عليكم عليكم السلام magacaada barkhad maxamed barkhadow ku soo dhawo barnaamijka baradiintaada su'aal diini ku weydiinaya su'aasha ku weydiinaya waxay tahay imsa salaadood oo waajib ah ayaa la tukadaa 6 salaadood 3 salaadood 5 maxay kala yihiin shantaas waa salaad subax iyo duhur iyo casr iyo maghrib iyo cishaa inta ma tukataa adigu haa tukada Allahu akbar ma sha Allah soo siyaadiisi fariid ما شاء الله دينتي سما بريتي ملعامد يسكول يوم ودقتها ما شاء الله دكتور قران ما دقتها ما شاء الله كم وقتها إنه ددالي هي حنبليو ما شاء الله هي إنك مركز سويت كذا نية كاتور كلا نية كاميرا السلار السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مقعورال المهدي أحمد بلال مهدي وكسر له برنامج برادينتاada إن شاء الله سؤال ديني ku weydiinaya su'aasha ku weydiinaya waxay tahay waxaad sheegtaa اللهم صل على نبينا محمد waxaad jirta salaadu waxay ka kooban tahay arkaan iyo waajibaad wax la yiraahdo tiirarkaas iyo waajibaad maxay ku kala duwan yihiin labadaas horta ma maqashada tiir iyo waajib waa rukniga taas waa rukni kana waa waajib farqiga u dhaxeeya noo sheeg macnaheedana iska qaado halka la mar iyadoo xalaala macnaha waajib wixii macnaha waajibkee leena faray salaadu kamid yihiin may eeg salaada dhexdeeda marka lagu jiro
waxaa jirta waxyaalo tiirar ah oo salaadu ay leedahay iyo waxyaalo waajibaada labadaas arrimood baad noo kala saari kartaa farqiga u dhexeeya bas wax istaflayaan dhimale kitaabka kalaan ku sinayna insha Allah taala sheekh kitaabka soo dhiib insha Allah arkaantaas iyo waajibaadka soo baran doontaa biidnillah hambaliyo sudaday السلام عليكم هذا عليكم السلام مقعد هذا أسد وكسر له برنامج كبرتين هذا إن شاء الله سؤال دينيا كويتينية سؤال شان كويتينية وحايتين ما قررنا سلبا حيوان أروح تصلات كشر اللي دلي كرو حيوان هذا ما رأت المسلم كوديل ماشي كو أركان في الحل والحرم أنا مساجد الحرم كها طعمة مال أنا مساجد كهين ماشي الوار كم النبي يقول حلو يقول دلي كرا حيوان كم قررنا تسكت يا مسكة يا مسكة ومسكة ككلنا وايو فريد ما شاء الله أيجا ككلام حد ما يصدق وحي لبضوا ولا ديلي كرا ورنتيس أيجا يشيرك لكن لبضن صلاة اللي صلاة مرة تكون شرت ما كذا أركته إمك نقول صلاة تكون شرنا هدين أي أركنا من إريان أيجا ماي لكن حيوان بشرته مرة صلاة تكون أركنا إنتانو مسلم كريبين أي نديلينه مسكة كميدة وكو ككلا إسنا وواح مسكة وإك واي محد محوية هي ترى وحيوان خطرة وصم بدن وبلايا أبي الصد يا مسكو يسكو ميدو بس نقول إيش هالك تير كبقدي تير كده دي سنة فريد أرني ولي يرى فريد ويا ما شاء الله كتاب قصصي وتسكت ده ولي بتسواشي بقول كيف كنت هو تصحدي ما شاء الله الله يبارك اسكت ده وناك سنبت سمعت ما شاء الله تبارك الله واي أنا سؤال متى هاي ميد كلا كويدينا يا ما يعطيك ميد كلا كويدينا يا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة مقعادر عبد الوهاب كسر له برنامج كبردين هذا سؤال كويدينا واحد هاي واحد شيء يسا مر أي بنان تهاي قفك مسلم كي تكنيا إنه فرق كتو كذا ومركه وحنوسنية كو فريد مركه وتكسر طورتي ومركه وحنوسنية وصح مر لبعض أيوة بنان تيمي جرتان يسوق الحنوسنية بحثها وين هذا ما يحتى هو يسوق يسكت لليرا يمكن هذا يقول كلا أيام مساج كاتكتي ما قرتي صلاة دين هو واجب ولا تكنيا هذا نوت كفر يستادون حنوسنية با ما حد عاي وكروي ما أد بدورته ما سنتي ما شاء الله أد بيسود ويسي بقول كيف كنتم برا تقولنا صحدي ورد يرد أي دين تفرديدا حبض يرو كل يوم بكامغن ما شاء الله هم بليو السلام عليكم. عليكم السلام. مقعادر. عبد الرزاق ولا عبد الرزاق وكسر له برنامجك بردين تادين إن شاء الله سؤال دينية كويدينية سؤال شان كويدينية وحي تاي واحد شيكتا مر قف كمارتي خطبة اللي أيوب بنان تاي إنه هذلو مقرنسا ومركو سؤال ويدينية خاطبك الله أكبر الله تكبير الله أكبر ده فريد والله وكسر قضية بالله سؤال ولي بقى يا هذاك very hard سؤال شو واحد هيد قرما يا قفك التكنية وكذي أنا شرحه قفك التكنية قفك مارة خطبة اللي قرما لو يقول يا هاي إنه هذا ما حد يقول شو مركو ويدينية خاطبك كخطبة ذينية مركو سؤال ويدينية سيدي صحابة النبي جايو ويديسي نكير البادية هاي يري إلهي نوبر إلهي رب هناك يعني الله أكبر عبد الرزاق ما شاء الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله عليه السلام ورحمة الله مقعد ولاد عبد الحكيم سؤال ديني كويدينيا كسر له برنامج كبردين هذا سؤال شاس واحد تاعي قرما أيه وبنان تاعي قف كصلاة التكنية أو جماعة حتى لا التكنية إنه سكفريستو فرق كتو كذا وحب بنان تمركون أودي كرين مركانوا أودي كرين كو مر لبعضهم بس شيء يساب بقول كيف كنت واضح فريد يو مركو سفر كوتشرو ونقبل دي وتشيدين ما جماعة بكوتشرة جماعة صلاة جماعة مركان أودي كرين صح وصح مركان أنا أودي كرين وتكفر يسان كرتا مع كيف تقولون كرتا وصح تاس يا هي مركز سنها تاي هي مر مد كلاين واحد فريد ونقصيني هذه العقدة والقصيني الله وتشكل مركز سنها تنا وارهنا وتفر يسان كرتا مركلنا ما فائدة سنة
waa marka imaamku uu fadhiisto markuu imaamku isagu uu fadhiistay wax halaale waxa ka dambeeyo dhan iyaguna waa inay fadhiistaan ila imaamka lagu dayanaya soo ma saddexdiiba waad sheegtay jazaakallahu khayran hambalyo waaye اللهم صل على سيدنا رسول الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته magacaaga walaal maxamed jiri bala maxamed oo ku soo dhawo barnaamijka baradiintaada su'aal diiniya ku weydiinaya su'aashaas waxay tahay waxaad sheegaysaa labada xayawaan ee nabigu uu amray iyadoo salaada xitaa lagu jiro in la dili karo السلام عليكم marka hore hadaan isku dayo waa abeesada iyo baasha loo yaqaan maxaa ku raday masaluuleyda magac kale leedahay mataqaan magac kale leedahay wax loo yaqaan afradilay ama maxaan kale wax lagu tilmaami karaa dibqalooca warintiisa mar magacyo badan bay dabcu Soomaalidu taqaanaa marka waad mahadsantahay waa runtiisa ما شاء الله همبليو لبدا حيوان وين نبي وحده يقتلوا الأسودين الحية والعقرب لبدا ماركتي من مدو وماركت أبي صدقة يسدو كله تبقى الله حتى يدينكم صلاة كوتشر الدلاء وايدتكم بيدري بس سما حكوا صلاة كوتشرون بيميل قنينش نعم وبركة وين الدلوي السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مقعد والله محمد خضر عبد محمد خضر وكسر هو برنامج كبردين هذا إن شاء الله سؤال ديني كويتيني سؤال شسوحي تهاي واحد نوشي سا فرق جودة حياة أركان الصلاة يواجبات كصلاة واحد كذا واحد أركان ركن تير صلاة كل سنتهاي يواجب واجبات كم من الصلاة كتبت فقه قالوا بدك تأكل يا واد بلادر مالين أرتا دينتا عدينا سومالنا أرتا دينتا سفي عن أيين ونقانا الحمد لله رب العالمين واحد لو ما هذا إلهي عن أركان الصلاة أيلاد هاي أركان الصلاة أيلاد هاي واج سنت الصلاة دو حوجسين ما أركان صلاة كستوى واحد كل حجرة إما صلاة الظهر ما رأيتي ما هي صلاة الظهر بس أفرق عدد واحد شرطة أركان مثلا ركن جواها كميدا عن كوسي شاقو ركن جواها كميدا إلا آخر سورة الفاتحة هدانا سورة الفاتحة قرآن أنا داخلين صلاة دي مجرتو وايه واجبات كلا واحد كميدا سبحان ربي الأعلى محل ولا صدقوا كل دوين واجبات كلا واحد كميدا سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم واجب اللي يقول لي هاي فاتحة أنا واحد يقول هو الركن وطير كميدا تير صلاة فرق بعود حي مقرن صادر ما فقر قاسي ما قرني عم دبر تقول حياة ما قرني لكن والله إنه فايديني ما شاء الله ويرود فايدينا إن شاء الله تعالى هديت كلا كسينيا همبليو وتسكت داي وناكسن بعد سما يسرون أنتي إلهي نوفض ديو ما يواسون أحسن لا أدري وحلي ما قرني وحي كم يتاي وعلمي كلا بروبرت إن شاء الله أنت أنا وين فايدينا ضنا بإذن الله قف كلو إنه فايديو كجواب ها السلام عليكم وعليكم السلام ما قاعد عبد العزيز حبيب عبد العزيز وكسر دو برنامج خبرة دين هذا سؤال دينية كويتينية واحد يجي جواب تقدر أركان الصلاة دي واجبات الصلاة محا وده هي فرق وحان وده هي أركان الصلاة دي واجباتك قفوا إنه صلاة وقت جي تاجن تكذا إنه وقت جي اللي تاج وتسوى وحوي شروطها صلاة وتصحسن تاي كتير كواحد كم يدرس شيء نتير وفاتحة إلى الآخر يا الله أكبر تكون وتير هذه لقت تقف صلاة ما شرت يمكن هذا أنا الله أكبر هذا ساعة كده هكورن بسم الله الرحمن الرحيم ساكت كده صلاة بقى الله أكبر دي كويت بنك تيجي مرة صلاة ملي أوكي واجبات كنا وحكم إذا سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم هو ساكم إذا فرق جودة حين نشيك مر فرق جودة حين والله يا تسكت دايس عشان ما قرنا يوم لما لا وتسكت دايدي همبليو كتاب بالوسينية إن شاء الله كتاب كسر آخر سنة ساعة مدرسة ما دقت هذا ما شاء الله وكم وقت الدين تبى كم وقت وتشجيس فريد سدوال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مقعول يحيى إبراهيم يحيى وكسر دو برنامج خبرة دين هذا سؤال ديني أيام كويدينية سؤال شان كويدينية وحاي تهاي أركان الصلاة دي واجبات كفرق جودة حي وحول حي إنما الأعمال بالنية النية اللي تمات نية ما أركان تورتمر كلام كفايسيو كانت وحوي صلاة ديمك أما الظهر أما عصر تيدون طبعا النقطة واحد شرطة تيرر أي كنت هانت سو ما تيرر كهدي ميت كمية لغا سارو ده وجوري دمي يوكله ما كتير كهدات كتكتو صلاة دي برتي واجبات هنا ووحيالي هنا هدات كتكتو سبرة لو كتكتو يدونا دي صلاة دي كبريسة ولكن واحد لوجو
lagu kabaa sujuudu sahwi baa lagu kabaa haddaad ka tagto matalan marka farqiga u dhaxeeya waaba caddeeyey farqiga u dhaxeeya arkaanta iyo waajibaadka sheeg waa takbiir wey takbiir takbiirta ma dhib male isku dayday ma sha Allah jazaak Allah khairan kitaab bal gusinaya insha Allah soo si sheekh kitaabka u soo dhiib hambaliyo waad maadsantahay ma sha Allah barakallahu fiik hambaliyo وكادي اللي كان بالكانه ما وين دبا سما شيخ وين دبا فريا ساشا سؤال هذا وين وان فريا سا ان كودا فايديسنا وان فريا ساشا ان شاء الله تعالى ان كير درغدا بسم الله الرحمن الرحيم سؤال شمارتي أركانتا iyo waajibaadka salaada farqiga u dhaxeeya marka hore waxa muhiim ah inaan fahamno tiirka ama arkaantu ama ruknigu wuxuu yahay ruknigu ama tiirku waxa weey waa wax aanay salaadu marnaba ka maarmi karin waa shay hadii aad ka tagto salaada qasab ay tahay inaad soo celiso mesela waxa kamid ah rukuucdi waxa kamid ah sujuudi waxa kamid ah fadhiga u dhaxeeya labada sujuudood waxa kamid ah atixiyaadka dambe waxa kamid ah salliga nabiga waxa soo dhan waxa kamid ah faatixada waxa kamid ah Allahu akbar koowaad waxa soo dhan hadaad salaada ka tagto waxa qasab kugu ah oo waajib kugu ah inaad dib u soo celiso halka waajibaadka salaada hadii aad ka tagto sida subhana rabbiyal a'la oo kale ama subhana rabbiyal azim oo kale ama Allahu akbar ta kale ku dhex jirta salaada marka laga rabito koowaad kuwa hadaad ka tagto waxa kugu filan laba sujuudu sahwi marka farqiga u dhaxeeya waxa weeye tiir hadaad ka tagto waa qasab inaad soo celiso iyo sujuudi sahwigiisi waajib laakiin hadaad ka tagto sujuudi sahwi kaliya kugu filan intaas weeyaa farqiga u dhaxeeya waxaan insha Allah ta'ala halkan maaragtay uga cadeyn doonaa barnaamijkan waxa fududeeyay dukaanka loo yaqaan Chori Store oo kamida dukaamada waaweyn ee ku yaala magaalada Hargeysa gaar ahaan kuwa iibiya cadarada iyo barfuumada iyo cuudka iyo unsiga waxyaalaha la isku wadgoonaysiyo dhan wuxuu dukaankaasina markaa uu ku yaala magaalada Hargeysa gaar ahaan idaacadda qofkii u baahan insha Allah dukaanka Allah barakeeyay isaga barnaamijka fududeeyay waxaan halkan insha Allah ta'ala isku day doonaa inaan su'aalihii aan dadweynaha ku dhaqan magaalada Wajaale aan weydiiyay aan dib maaragtay ugu soo wada celiyo jawaabahoodii sax ahayd aan halkan ka dhiibo insha Allah si dhammaan dadka oo dhan ay wada faa'iideystaan su'aalaha aan weydiinay waxa kamid ah shuruudda salaadu ay ku ansaxdo salaada qofka muslimka markuu tukanayo waxa laga rabaa shuruudda markaad la timaado bay salaadu ka ansaxaysaa shardiga markaa waxa kamid ah kow inaad niyeysato oo niyadu waxa kala saaraya maaragtay salaadii amal oo dhan ayaa niyadii u baahan waxa kale oo kamid ah inay waqtigii salaadu ay soo gasho waa hadii iminka salaadii duuriyada soo galayska tukato de salaad lagama ansaxayo weeyaan waxa kale oo kamid ah inaad xagga qiblada u jeesato oo qiblada iyaduna waxa weeyaa shuruud kamid ah shuruudaha waxa kale oo kamid ah in dharkaagu daahir yihiin jidhkaaguna daahir yahay meesha markaa aad ku tukanaysana daahirta iyo inaad adiguna weyse qabto oo xadadka ama waxyaalaha weysada jabiyo oo dhan aad ka weysaysatay kuwaas ayaa loo yaqaanaa shuruudaha ay salaadu ku ansaxdo waxa kale oo jira shuruudo caama oo de qofka looga baahan yahay qofku inuu muslim yahay haddii iminka nin gaala uu tukado miyaa laga aqbalaya waa maya weeyaan de haddii nin waalan uu tukadana lagama aqbalayo weeyaan marka waxyaalahaas oo dhan waa shuruudaha marka salaadii ay ku ansaxaysay meelaha aan salaadu aanay ku ansixin ee salaada marnaba aan loo ogolayn in lagu tukado waxa kamid ah waa meelaha maaragtay kudaafadaha iyo bulaacadaha iyo meelaha maaragtay wasakhda iyo najaasada iyo suuliyada iyo xamaamyada iyo musqullada waxa soo dhan lagu ma tukan karo waayo waa meel najaaso ah salaaduna waa salaad daahira oo wax weeye la isku daahirinayo xabaalahana sidoo kale lagu ma tukan karo sidoo kale meelaha kawaanka ee xoolaha lagu qalo ama lagu gowraco dhiig leh iyagana lagu ma tukan karo waxa kale aan lagu tukan karin wadooyinka ama meelaha maaragtay bani aadamku ay maraan ilaa ay daruura ay keento oo masaajidka uu buuxsamo markaas oo kale laakiin hadii ay dadka dhibayso iyadana waxay culimo badan qabaan in aan lagu tukan karin waxa kale oo kamid ah meelaha maaragtay aan lagu tukan karin waa meesha saalada geelo ay taalo saalada geela waxa weeyaan iyadana maaragtay lagu ma tukan karo waa meelaha maaragtay aan lagu tukan karin ayay kamid tahay culimada qaar baa dhahaa kacbada dusheeda iyadana lagu ma tukan karo leeyahay waxa weeyaan kacbada dusheedu qiblaba ma aha kuwa kale waxay qabaan in lagu tukan karo iyadana waa mas'ala khilaafiya oo culimadu isku khilaaftay weeyaan goorma ayaa qiblada qofka qibladii waajibka ahayd ee shuruudaha maaragtay salaada kamid ahayd goorma ayay qofka ka degaysaa su'aashaasna su'aalahan weydiinay dadweynaha reer maaragtay Wajaale waxayna jawaabteeda saxda ah ay ahayd marka uu qofku tukanayo salaad naafila ama salaad sunna ah
qofku qiblada wuu jeesan karaa ama uma jeesan kara labadaba way u bannaan tahay waxa kale oo maaragtay ay waajibnimadaasi ka degaysaa marka qofkii uu yahay qof xanuunsanaya ama bukaana oo aan xaqii qiblada u jeesan karin sariirtiisa isagoo jooga ayuu maaragtay dabcan ku tukan karaa waxa kale oo kamida su'aalahan weydiinay dadweynaha reer maaragtay wajaale goorma ayaa qofka ma'muumka ah ama salaada la tujinayo uu fadhiga ku tukan karaa 3 mar ayay bannaan tahay waa midda koowaade waxa weeyaa waa markaad salaad sunna tukanayso salaad sunna aad tukanayso fadhiga iyo istaaga labadaba ku tukan kartaa wayna bannaan tahay waxa kale oo kamida markuu qofku buko haddii qofku uu buko nebigu muxuu dhahay ha isagoo fadhiya iska tukado waxa kale oo kamida marka imaamkii ama xanuun ha ku yimaado ama wax kale ha ku yimaadaan imaamkii masaajidka tujinayay uu iska fadhiisto dhammaan muslimiinta ku daba tukanaysa iyadana waxaa la rabaa inay fadhiistaan sidii nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu xanuustay isagoo fadhiya ay saxaabadii ugu amray inay wada fadhiistaan taana culummadu waxay leeyihiin imaamka uun baa lagu dayanayaa qaabkuu tukaday hadduu tukato su'aalaha kale aan weydiinay dadweynaha reer maaragtay wajaale waxaa ka mid ah xayawaanada la dili karo marka salaada aad ku jirto waxayna ahayn 2 xayawaan oo kale ah abeesada ama maska iyo wixii la halmaala iyo wixii xayawaanka loo yaqaan dibqalooca oo ah maaragtay sun oo bani aadamkii iyo muslimiintii dhibaya oo haddaan la dilin iyagu wax dilaya weeyaan waa kuwo wax dilaya haddii aan iyaga la dilin waxaan kaloo aan weydiinay sujuudu sahwiga goorma ayaa la rabaa qofku inuu sujuudi sahwiga uu la yimaado 3 mar baa qofka muslimka looga baahan yahay inuu sujuudi sahwiga la yimaado waa marka uu salaada uu wax ka nuqsaamiyo oo rak'ad ka nuqsaamiyo mesela sujuudi sahwi baa laga rabaa iyo marka uu salaada wax ku daro rak'ad dheeraad uu ku daray markaana sujuudi sahwi baa laga rabaa iyo marka uu salaada dhexdeeda ku shakiyo ee uu dhaho ma 5 baa tukatay mise 4 mise 3 mise 2 markaana waxa laga rabaa sujuudi sahwi 3 jeer ba qofka muslimka waxa laga rabaa inuu sujuudi sahwiga uu la yimaado salaada leelku xilliga bilaabanto iyo xilliga dhamaato waxay kala ahaayeen salaadu waxay bilaabantaa leelka ama witriga la tukada habeenkii waa marka cishaha saa looga baxo ayay bilaamaysaa ilaa iyo habeenka oo dhan bay soconaysaa ilaa inta laga gaadhayo aadaanka salaada subax intaas oo dhan salaatul leel waa tukan kartaa xagga horeed ka tukan kartaa xagga dhexaad ka tukan kartaa meesha dambaad ka tukan kartaa laakiin waxa khayr badan sidoo nebigu sheegay xilliga dambe ama thuluthul akhir waxa loo yaqaano laakiin inta kale oo dhan way ku ansaxaysaa habeenkii haddaad tukato walow kaanad rak'a xitaa hadday rak'ad kaliya ay tahay waayo waa sharafta muuminka maaragtay salaada leelka su'aalaha weydiinay reer wajaale waxaa ka mid ah quraanka ama suuradaha la akhriyo salaada subax labada rakcadood ee ka horeeya ee nebigu sallallahu alayhi wasallam mar walba akhriyi jiray labada rakcadood ee salaada subax ka horeeya nebigu wuxuu mar walba akhriyi jiray suurada loo yaqaan suuratul kaafiruun ama qul yaa ayyuhal kaafiruun iyo suurada loo yaqaan suuratul ikhlaas oo ah suuratu qul huwallahu ahad labada suuradood ayuu markuu nebigu alayhi salaatu wasalaam uu akhrin jiray labada rakcadood ee sunnaha ah ee fajriga ama salaada subax ka horeeya su'aasha kale weydiinay dadweynaha degan magaaladan khayrka badan ee wajaale waxa kamida salaada ciida marka la takbiiranayo takbiiro badan iyo Allahu akbar badan ayaa la akhriyaa imise jeer ayaa ragcadda koowaad la akhriyaa ragcadda labaadna imise jeer ayaa la akhriyaa ragcadda koowaad waxa la akhrinayaa 7 jeer oo ay ku jirto Allahu akbar tii koowaad ee lagu xidhanayay marka 7 isku noqonaysa isu geyn halka ragcadda labaadna ay 6 ka noqonayso iyadoo lagu darayo Allahu akbar ta lagaga soo kacayo maaragtay sujuudda iyo 5 ka dambeeya marka waa 7 hore oo ragcadda koowaad iyo 6 maaragtay ragcadda labaad su'aalaha kale aan weydiinay waxa kamid ah salaada janaasada ama meydka qofka muslimka marka lagu tukanayo qof dhintay maxaa la akhrinayaa 4 takbiirood baa la dhahaa Allahu akbar ta koowaad waxa la akhrinayaa faatixada oo salaada waxa lagu bilaabayaa suuratul faatixa ragcadda labaad Allahu akbar ta labaadna waxa lagu salinayaa nabigeena xabiibka sallallahu alayhi wasallam waxa kale oo ragcadda ama Allahu akbar ta saddexaadna loogu ducaynayaa qofkii dhintay nin iyo gabadh ku doonaba ahaade ta afraadna waa lagu salaamo naqsanayaa assalaamu calaykum ayaa lagaga baxaya su'aalaha kale aan weydiinay waxa kamid ah ducada lagu furfurto salaada ducooyinkaas waa aad u fara badan oo kitaabka xusnul muslimka oo aan insha Allah imika u qaybin doono marka walaaladina halkan jooga ku qoran ama maaraytay ku taala way fara badan tahay waxa kamid ah subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka iyo ducooyin kale oo fara badan ayaa lagu furfurtaa salaada baarita lagu furfurtaa waxa kale aan weydiinay atixiyaadka oo aad muhiima oo qof kasto muslima loo baahan yahay inuu barto iyo salliga nabiga ee ka dambeeya atixiyaadka marka sida saxiixa ah ee ku soo aroortay
kutubta maaragtay axaadiista saxiixa ah waxaa loo akhrinayaa qaabkan soo socda attaxiyaatu lilaahi wasalawaatu waطayibaatu assalaamu calayka ayuha الnabiyu waraxmat ullahi wbarakaatuh assalaamu calayna wacalaa cibaadi illahi الصaalixiin ashhadu an laa ilaaha ila allah waashhadu ana muxammadan rasuulu اllah kaas waa atixiyaadkii waxaa loo baahayay qof kastoo muslima inuu xil iska saaro oo waajib ay ku noqonaysaa waayo cibaadadiisi baa ku ansaxmaysa waxayna ka mid tahay tiirarka salaada oo haddaanad akhriyin oo si saxaanad u akhriyin salaadaadii way buraysaa waxaa kaloo ka mida nebigeenna xabiibka in lagu salliyo oo lagu salliyo qaabkii uuna baray ee ahaa allahuma salli calaa muxamed wacalaa aali muxamed kama sallayta calaa ibraahim wacalaa aali ibraahim innaka xamiidu majiid allahuma baarik calaa muxamed wacalaa aali muxamed kama baarakta calaa ibraahim wacalaa aali ibraahim innaka xamiidu majiid taana waxaa loo baahan yahay qofka muslimka inuu barto waayo waa waajib ka mida waajibaadkii salaada ee loo baahan yahay in la barto su'aalaha kale aan weydiina waxaa ka mid a goorta ay bannaan tahay qofka maamuumka ama qofka la tujinayo ama qofka dhegaysanaya khudbadda jimcada in uu hadli karo si aan ogsoonnahay khudbadda jimcada marka lagu jiro waxaa mamnuuca inaad hadasho haddaad hadasho waxa weeye jimcadaadii way burtay jimcana ma lihid xataa haddaad qof qaylinaya aad ku tidhaahdo naga aamu waxau dhahay nebigu xitaa aamuska iyo uskudka aad tidhi ayay xitaa taadii ay ku burtay subxaana allah marka waxa weeye hal mar keliya bannaanta waa marka khatiibka aad su'aal weydiinayso ama aad ka codsanaysa maaragtay ducaya wixii la midka inta kale haba yaraatee khudbadda inta lagu jiro ma bannaana in qofkii muslimka ahaa uu ku dhex hadlo si aanay salaadiisii ama jimcadiisii uga burin weeyaan su-aasha kale aan weydiinay waxay ahayd 7 xubnood ee markaa qofka muslimka uu ka sujuudayo 7 xubnood oo la rabo inay dhulka maaragtay ay yaalaan si maaragtay sujuudaasi ay noqoto sujuud ansaxa 7 xubnood waxay yihiin 2 baabaco iyo 2 jilib ruuga ama lowga iyo 2 farood ee faraha cagaha iyo markaa jabhadana waxaa loo yaqaanaa dhafoorkan halkaa laga sujuudo oo uu sanku ku jiro dad badan sanka way ka tagaan oo madaxa intay saa halkaa u saaraan buu sanku hawada maraa ma lama ogola sujuudaasina ma ansaxayso siduu nebigu sheegay sala allahu calayhi wasalam aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay inaan soo booqanno magaalada wajaale iyo in aan ku soo bandhigno barnaamijka baradiintaada insha allah waxaan rajaynaya in marar kale soo booqan doonno halkan oo maaragtay barnaamijkan iyo kuwo kaloo khayriya aan ka qaban doonay biidni illaahi tabaaraka wa tacaala iminkana dadweynaha halkan jooga waxaan rabnaa hadiyadda inaan insiino kutubtaas ah maaragtay xusnul muslimka oo kitaabkii ducooyinka iyo maaragtay kitaabkii marka aad ka faa'iideysanaysaan adkaarta maalinlaha ah ambaliyo qof kastaba qof walba helaysaa ukaadi qof walba waad helaysaa ukaadiya dukaankan wuxuu iibiyaa saa u jeedaan cadarada iyo barfuumada unsiga wax kastoo qalab kasta ama udug kastoo la isku udgoonaysiiyo halkan waxaad ku arkaysaan cadaradii waxaad arkaysaan noocyo kala duwana run ahaantii aad iyo aad u udgoon dukaankan magaciisa waxaa la dhahdaa Jory Store wuxuu ku yaalaa magaalada Hargeysa gaar ahaan idaacadda maasha allah aad iyo aad baan ugu faraxsannahay waan uga mahadcelinaynaa dukaankan sida wanaagsan ee uga qayb qaatay inuu soo taageero barnaamijka baradiintaada isagoo hadda ka horna ka qayb qaatay haddana iminkana ka qayb qaatay fududeeyey markaa barnaamijka baradiintaada oo ah barnaamij maaragtay khayr qaba oo aan dadweynaha su'aalaha diiniga ku weydiino sidoo kalena aan hadiyada siino maasha allah barnaamijkan waxaa inoo fududeynaya oo ka qayb qaatay dukaankan maaragtay Jory Store annagoo maaragtay uga mahadcelinayna sidoo kalena ugu ducaynayna waxa wanaagsan ay sameeyeen oo ah inay dhiirigeliyaan howladeennada barnaamijkan iyo sidoo kale dadweynaha barnaamijkan ka qayb gelaya hadiyadaha la siinaya haddii ay tahay iyo haddii ay tahay kharashaadka barnaamijka